labada qofood dardaaran aan u jeedinaa laba qofood kan aan wali nafsadiisa horumarinin dardaaran aan u jeedinayaa oo ah noloshu way xanuun badan tahay markii aad u baahan tahay inaad isbedel samayso way saraaxa iyo deganaan badan tahay markii aad rabin inaad isbedel samayso haddii aad u baahan tahay inaad la noolaato nolol dhiiranaan geesinimo jacayl farxad iyo horumar ku dhisan maanta bilow xanuunada inaad u dulqaadato maanta bilow inaad calaacalka iska diido maanta bilow inaad quusta iska ilowdo sababtoo ah quusta rajo la-aanta iyo calaacalkuba ma aha wax kuu suuragelin kara inaad biri guul dhaba keento waa wax kuu suuragelin kara inaad ka seexato noloshaada iyo ujeedooyinkaaga ninka kaleeto oo ishorumariyay nafsadiisa waxaan leeyahay wadadii guushaad cagta saartay calaacalka iyo xanuunada iyo xumaan aragga iyo nacaybka iyo waxyaabaha ay dadku kugu leeyihiin ma aha waxyaabo adiga ku sheegaya ee adiga waxa ku sheegaya dhaqamada ficilada iyo isbedelada aad maalin walba la soo toosto ha ku fikirin in war kaliya uu noloshaada bedelay oo ku fikir in ficilada iyo dhaqamada wanaagsan ay noloshaada bedelaan intaasoo ay noloshaadu macno dhaba kusoo biiraan markii aad maalin walba ficil wanaagsan aad samayso markii aad cafiso intii ku xumaysay markii aad jeclaatay inta wanaaga kula jecel markii aad dhiirigeliso intii horumarka samaynaysa markii aad soo dhawaysato dadka noloshaada tusaalaha nool u ah noqo shakhsi haysta meel uu muhiim u ah si aad u hesho tusaale nool oo noloshaada isbedel kusoo kordhiya intaasaan dhihi lahaa marka qofka aan isbedelka samaynin inuu isbedel sameeyo calaacalka quusta rajo la-aanta iska dhaafo qofka kaleetana inuu hor u wado hawshiisa uu guul